wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walbo aad joogtaan waad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada tixanaha murtida iyo maahmaahyada. tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhigeedu ay tahay saddex ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyana saddex ilaahay kaagama dhigo. soomaalidu waxay inooga tageen murti madhaafaan ahi. saddexdan waxyaabood hadduu ilaahay kula kulmiyo saddex ilaahay kaagama dhigo. waxyaabaha halista ku ah qofka noloshiisa soomaalida inta badan way ka ducaysan jirtay, iyagu murti ahaan isugu xidhiirin jiray. haddaba murtidaani saddexleeda ahi waxa ay ka mid tahay murtida ducada iyo allabariga ahi, waxayna isku dul saaran tahay saddex waxyaabood oo kala duwan. saddexdaa waxyaabood waxay kala yihiin fulay ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane midkaa orad badan ilaahay kaagama dhigo. bakhiil ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane beelow ilaahay kaagama dhigo. madhasho ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane maaqiido ilaahay kaagama dhigo. saddexdan waxyaabood ayay soomaalidu ka ducaysteen, mid walibana waxa ay leedahay macno gooni ahi. saddexdan ilaahay kulama kulmi markii la leeyahay waxay ula jeedaan haddayba dhacdo inuu ilaahay kula kulmiyo saddexda kale ilaahay kaagama dhigo. midda koowaad murtidu waxay leedahay fulay ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane midkaa orad badan ilaahay kaagama dhigo. sida la ogyahay nolosha reer miyiga Soomaaliyeed aad ayay u adag tahay. xilliyada colaadaha iyo xilliyada baadigoobidda xoolaha lumay taasoo halis ku ah qofka noloshiisa. dadka reer miyiga ahi xilli kastaba waxay ku socdaalaan dhul bahalo badan, jarmaadid, baqoolid, caraabid iyo guuraba. haddaba inta badan waxaa dhici jirtay inay waddo ku wada kulmaan laba qofood oo baadidoon ahi, halkaasna iska wada raaci jireen iyagoo isweheshanaya kuna socdaalaya dhul cidlo ahi oo bahalo miiran. haddaba midkood hadduu fuli noqdo wuxuu halis geliyaa kan kale noloshiisa. iyadoo taasi ay ka ducaysanaysa soomaalidu waxay yidhaahdaan midkaa orod badan ilaahay kaagama dhigo. taasay ula jeedaan hadduu orod aqoon dantu waxay bidaysaa inuu isdifaaco. midda labaad murtidu waxay leedahay bakhiil ilaahay kulama kulmiyo. soomaalida oo 100% muslim ahi waxay leedahay dhaqan wanaagsan oo asalkiisu ka soo unkamay diinta islaamka, taasoo daliil cad inaga siinaysa in soomaalidu ceeb weyn ka aaminsaneed bakhiilnimada, iyagoo ku caanbaxay soo dhowaynta socotada iyo martisoorka. qofka socotada ahi dhulka oo maraya haddii uu yahay cidlo ciirsila wuxuu qaadan jiray qaraabka midhaha dabiiciga ah oo waayadii hore saa'id dalka uga bixi jiray, balse dhulka uu maraya haddii dad degan yahay wuxuu u marti noqon jiray hadba qoyska udubkiisu ka mudan yahay deegaankaas uu marayo. sababtoo ah dhaqanka suuban ee soomaalida hiddaha u lahaan jirtay, qoys kasta waxaa waajib ku ahaa dadka socotada ahi markay gurigiisa yimaadaan inuu si wanaagsan u marti sooro, welibana marka ay ka tegayaan inuu siiyo jiscin gaarsiiyo degmada uu ku sii jeedo. qoyskii socoto u soo martiso ee ka seexda ama quudin waaya ceebtiisa ayaa gigiga oo dhan la isaga tabin jiray. haddiise qoysku loo soo martiyey sabool yahay waxaa waajib ku ahayd inuu weji furnaan ku soo dhoweeyo kuna qanciyo inuu wax la'yahay runtana u sheego. maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa deero hore deeq kama dhacdo, balse dhaqan waxaa ugu liito bakhiil lala kulmay, waxna la weyddiistay, carabna laalaadinaya, wakhtina luminaayo. sidaa darteeda soomaalidu way ka ducaysan jirtay oo waxay dhihi jirtay bakhiil ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane beelow ilaahay kaagama dhigo. midda saddexaad murtidu waxay leedahay madhasho ilaahay kulama kulmiyo, hadduu kula kulmiyane maaqiido ilaahay kaagama dhigo. ubadku waa deeq qof kasta uu ku ducaysto inuu ilaahay siiyo, waana lagu farxaa. balse raggii Soomaaliyeed waxay dhihi jireen tol yaraade tafanaagood baa laga dayaa. haddii ninkuu soo guursado gabar wuxuu u hanqaltaagaa ubad inay u dhali doonto
diin iyo dhaqanba waxaa la aaminsan yahay in guurka biyo dhiciisa uu yahay ubad waxayna ninka guursadaa dhihi jireen ma dhasho ilaahay kaagama dhigo hase ahaatee gaari loo xishay iyo gabar loo aayo raalliyad garaad badan midaan laga samri karin hadduu alla gacantaada geliyo tii la yidhi tu kale aan lagu xusuusan balse qadar lama baajiyee ma dhasho ilaahay kulama kulmiyo hadduu kula kulmiyane maaqiido ilaahay kaagama dhigo taas ay ula jeedaan haween gaari ah iyo ubadla'aan inay tahay calaf xun dhegaystayaal tixanaha murtiday maahmaahyadane maanta halkaa inoo joogto ta intaa ku kulmi doonno qayb kale Haweenkii aragga